hadalka sheekh oo yiri marka xogo inaan jilciyo oo beeshan u sheego horta sheekha wuxuu ridinayay nin sheegay inuu hayo sabarka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sheekh markuu wuxuu yiri miyuu waayay qof quruxsan marka nin jareera ayaa mataqaana sabirkiisa uu soo saaray hadalkaas marka in badan dadka adduunka waxay u fahmeen in sheekh uu caayay qoomiyada beesha Jarweyne runtii nin wax fahmi karo ayaa mataqaana wax fahmi kara Sheekh Maxamuud Shibili runtii hadalkaas markuu sheegay ana waan fahmay sheekh wuxuu ka wado jareer iyo mataqaana beeshana si uu fahmeen waa si qalad baart qaar ka soo hadleen Jowhar waan arkay qaar ka soo hadlay Mareykanka social media way ka buuxaan iyo Cabdiqaadir Kishki loo yaqaano asagana uu soo hadlay wuxuu iska dhigay nin wanaagsan oo wacdiga umada uu sheegayo kadib wuxuu dambeysiyay hadalkiisa waan dhageystay clipkiisa 17 daqiiqo baan u maleeyay inay gaarayso markaan arkay ayaa waxa ku dhex jiray hadal uu ku yiri wuxuu Sheekh Shibili u aflagaadiyay qoomiyada dhan beesha Jarweyne qoomiyada Soomaali kamid tahay u aflagaadiyay wuxuu ku tilmaamay jareer waxaas ku sheegay waa dadkeeyii waa culimadeedii buu sheegay sida awgeed marka iyo kuwa kalena soo hadleen baa jira social media TV-yaasha mataqaana qaarkood bulshooyinka bay ka ciyaan khair kama shaqeeyaan shar bay ka shaqeeyaan marka waxaan leeyahay hadalka sheekh oo yiri nin jareerna ma aha miyuu waayay markuu soo saaray nin jareer horta jareer uu yahay horta la isweydiyo way jareer waxa laga wadaa waa Afrikaan way laga bilaabo Soomaaliya bilowgeed Afrika ka bilowdo ilaa South Africa meesha ugu dambeeyo tii ka sii dambeysaba waxa loo yaqaan jareer runtii Soomaalidu waxay kamid tahay mataqaana dadka Afrikaanka kamid yihiin kama baxsana Soomaalidu waa Afrikaan hadii la yiraahdo jareerna waxa weeye asal laga keenay waa nin tin adag ana u laabana marka nusuusta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam siradiisa marka la aqriyo iyo kutubta ku qoran ama shamaa'il muhammadiyya waa kitaab ka hadlayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa iyo qaabkiisa uu ahaa marka la fiiriyo iyo ninka la soo saaray masirkiisa la muujiyaba ama way jirtaaba ama aysan jirinba masirka la soo saaray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tilmaamka kutubta ay sheegeen iyo ninkan masirku soo saaray isma laha rasuulka ma lahayn tan adag rasuulka ma ahayn tan Chinese na ma laha timo Asian na ma laha timo African na ma laha nin madowna ma ahayn nin aad u falxun ma ahayn ninka la soo saaray sabirkiis nin aad u falxun weey uma qalmo sabarka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu nin Carbeed buu ahaa ninka la soo saaray nin Afrikaan bala soo saaray runtii Sheekh Maxamuud Shibili hadalka uu ka yiri nin jareerna wuxuu ka wadaa nin Afrikaan marka beeshu waxaan leeyahay waxa soo kiciyay firqatul murtadiyiinta maandoon loo yaqaan ninkan uu sareeyo kamid yahay Cabdiqaadir Kishki oo ka soo hadlay wili uu leeyahay ooliyadeedii iwaan barakeystay wuxuu iskaga dhagaa nin muslina ila waxa ku dooganba Ilaahay ba garanay marka saa awgeed waxaan leeyahay beesha Jarweyne cid kugu xigto muslim ma jirto Ilaahay wuxuu noo awoodo waxa Ilaahay wuxuu noo abuuray waa cibaado Soomaali waxa loo abuuray waa cibaado Carabtu waxa loo abuuray waa cibaado cadaanka iyo Afrikaanta dhamaantu waxa loo abuuray waa cibaado Ilaahay Quraanka ku tilmaamay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ilaahay bin aadan kasto ashad jin loo yaqaano iyo bani aadan dhanba meesha ka soo galo waxa loo abuuray waa cibaado marka waxa leeyahay beesheed Jarweyne aniga aan kamid ahay in badan marka la soo qaado Jarweyne hatta hadalka Sheekh Maxamuud Shibili markuu sheegay wuxuu yiri jareer Sheekh Shibili jareer tuu yaqaana bantuuda u yaqaana Sheekh Shibili culimadooda u yaqaana waxa garadkooda u yaqaana ما تقانا
madaxdooda u yaqaana sheekh ma dhihin hadalkaas inuu sheekhu ku sheego yiri beesha Jareerweyne mas'uulkiisa la soo saaro sheekh ma dhihin ama beesha Mashunguli sheekh ma dhihin ama beelaha kamid Jareerweyne sheekh magac ma soo qaadin wuxuu soo qaaday magac Jareera sheekheena oo aad iyo aad inagu qiimo badan oo ah sheekh Soomaaliyeed oo fuqaa runaantii aan aad u jecelnahay aanu dareemayno jacaylka aan culimadu jecelnahay inay tahay jacaylka ina gaarsiinayo ambiyada iyo maxay aheeday nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ila Ilaahay subhanahu wa ta'ala halka ina gaarsiin doono sida aan hamigeenu yahay sida awgeed way fiican tahay culimadu wax badan inaanu difaacno dadka maanta wax magaratada ah iyo munaafiqiinta uurka gaalada iyo faasiqiinta waxay jecel yihiin mar waliba inay maxay aheeday wado ay u raadiyaan diinteena dadka u taagan difaaca haday afka tahay haday gacan tahay haday niyad ahaan tahay walaalaha muslimiinta oo adduunka joogo khaasatan kuwa ku hadla afka Soomaaliga aniga hadaan ku hadlayo waxaan leeyahay waxa fiican mar waliba kunu ansaarullah diinta Ilaahay in loo gargaaro hadii diinta tani loo gargaaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu najcalaani raalib uu inaga noqonayaa sidee diinta ugu gargaarna waa la isweydiiyay culimadan aan ka dhaxalnay diinta al-ulamaa yarithul anbiya waxa weey inaan xishmayno qiimayno manzilada maanta ay u taagiin kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka inaan u khirno oo run ahaantii waxay yihiin inaan tilmaagno sheekhu waxaan leeyahay cudur ilayk waan karaal gelinayaa caayda iyo aflagaadada loo geystay runtii wax loo dhan yahayna ma aha halka sheekh markaan karaal geliyo aan dib ugu soo laabto dadka reetolkeyga ama reer aabaheyga waxaan leeyahay mar waliba markay dhacdo noocan ay dhacdo ku xisaabtan inay ka faa'iideysanayaan munaafiqiinta iyo wixii lamid ah oo la halmaala kuwa maxay aheeday diinta Ilaahay cuqdad u hayo kuwa maxay aheeday murtadiinta ah iyo wixii maxay aheeday marka diinta naceeb u qaba inagu culimadu waa culimadeena inaan xishmayno waa inagu waajib